shir jiraaday maanta magaalada Burco si wada jira uu qabteen salaadiinta cuqaasha waxgaradka culimaadiinta iyo ganacsatada galbeedka magaalada Burco ayaa ka hadlay dhalinyaro xaalada amni darro ka abuuray gudaha magaalada Burco waxaana sidoo kale ka hadleen dagaal laba beelood oo walaalaha ku dhexmaray deegaanka Ceelaf Weyn geesta kale waxay sidoo kale salaadiinta cuqaasha waxgaradka culimaadiinta iyo ganacsatada galbeedka Burco ay ciidamada qaranka Soomaaliland ku amaaneen sidii hariya habeen heeganka ugu jiraan difaacidda qarannimada Soomaaliland waxaana kamid gobolka Togdheer yacni cidii shaqaagadaasi gaadhay wixii gobolka beelahaanada gaadhay inay yacni aan ka xaal marino oo ka raali galino wixii dhibaato ku dhacdayna anagu bixino taasi waa qodobka labaad waxaan u soo jeedinaa labada beelood ee walaalaha inay joojiyaan dagaalka inay qoridu wiil baa ku dhinta ee waxa weeye kuma dhashay ay nabadgelyada iyo tolnimada iyo walaalnimada iyo derisnimada iyo ehelnimada ay qiimeeyaan dawladda Soomaaliland iyo waxgaradka beelaha reer Soomaaliland waxaan u baaqanaa inay arrinka xoog saaraan oo si degdeg ah yacni oo aan loo kala hadhin maanta loo galo taasaan iyakana u soo jeedinaa qodobka saddexaad waxaan u mahad celinaa ciidamadayada qaranka ee la soo weeraray ee sida sharafta iyo qiimaha ku jira isu difaacay waxaanu nahay oo halka isugu nimi odayaal ka tirsan galbeedka Burco oo boolojiis ka bixinaya wixii dhacay ee waliba soo noqnoqday aad iyo aad ayaan uga xunahay waxa dhacay boolojiis guud waxaan siinaynaa reer Soomaaliland oo dhan boolojiis labaad waxaan siinaynaa reer Togdheer boolojiis saddexaad waxaan siinaynaa Burco barigeeda boolojiiska afraad oo ku celcelinayno waxaanu siinaynaa cidii wax gaadhay oo ugu horeeyo Omar aad iyo aad baan boolojiis u siinaynaa Omar taa magado boolojiis baan ka siinaynaa wixii gaadhayna waa dushayada oo waa bixinaynaa anugu dadkanu galabta wuxuu isugu yimi marka hore dhamaantii wuxuu isugu yimi qodobadu ka hadlaya waxa weeye waa nabadgelyo midbadan uu jeedaba iyo wixii aynu wada leenahay dalku uu inaga dhaxeeyo oo ah inaynu wada difaacno cadawga ka wada difaacno dhamaanba hadii aynu nahay Soomaaliland odayaashii hore horta waxaan la qabaa raali gelinayay ganacsiga hadii alla ka dhigay muhiimka ee dalka waxna ka dejiya waan la qabaa odayaashii hore raali gelintooda waxaan leedahay wardib isugu noqda oo isxusuusta oo dagaalka joojiya taa ayada labada beelood baan leedahay dagaalkaasi in badan bisocday wuu inagu sii rafan doona sidaas nabadgelyo ku imaan mayso war cidda khalad kala loo sheego walaalayaal nabadgelyada ku soo dabaala waxaanu siqiir iyo kabiir waa difaacaynaa ciidamadaanu baal taaganay hiil iyo hooba waa la baal taaganahay difaaca qarankaanu diyaar u nahay Burco waxay leedahay hadduu baan baraarugo xamsa ay toosiyay waxaanu doonaynaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi nabadgelyada Burco ka dhacdaynayu Burco inuu xadhiga ka jaro oo ku alla barina annaguna oo uu noo yimaado waa magaalada madaxdii labaade nabadgelyadeedii baa dhidibada aan u aasnay uu ku soo dhawaado oo aan ku alla barino shireen ugu horeeyay ugu hadleen marka waxa leeyahay nabadgelyadu waa in labada dhinacba nabadgelyo waxa lagu faano wanaagsan weeyaan marka in nabadda la ilaaliyo waxa halka ugu hadlaqaya sida dawladdu ay ugu shaqeysay barasaabka iyo ciidanka qaranku labaduba sida nabadgelyada ugu dhameeyeen ومحمد إبراهيم